waxay ahayd xilli u baahan magaalada Beledweyne inay hesho ciidamo ka socda midowga Afrika ee AMISOM kadib markii xarakada Al-Shabaab ay ka baxeen guud ahaan magaalada Beledweyne halkaasoo ay in badan ka reemi jireen waxaana xilliga gacanta ku dhigay magaalada Beledweyne ciidamo ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa dalka Itoobiya waxa in badan magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qaraxyo joogto ah kuwaasoo dhibaato ka soo gaari jirtay dadka shacabka ee ku nool gudaha magaalada Beledweyne bilowgii sanadkii hore ee 2012 ayaa cutubyo ka tirsan ciidamo ka socda dalka Djibouti qaybna ka ah howlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya ayaa ka degay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo halkaasi si aad dadka deegaanka iyo maamulka gobolka ee dawladda ay ku soo dhaweeyeen ciidamada Djibouti AMISOM ayaa markii ay gaareen magaalada Beledweyne waxa ay fadhiismo ay ka dhigteen xarumo ay ka mid tahay saldhigga ciidanka booliska magaalada Beledweyne xarunta gobolka xabsiga dhexe ee magaalada laba meel oo ka tirsan xaafadda Howlwadaag iyo sidoo kale afaafka hore ee magaalada laga soo galo saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ciidamada Djibouti ee salka dhigtay magaalada Beledweyne ayaa halkaasi markiiba waxa ay ka bilaabeen kulamo gooni ah oo ay la yeelanayaan dadka deegaanka iyo maamulka gobolka ee dawladda Soomaaliya si looga wada shaqeeyo soo celinta arrimo badan oo ay ka mid tahay ammaanka waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale adeegyo kale oo muhiim u ah magaalada Beledweyne mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Djibouti AMISOM ayaa qaba in ay magaalada Beledweyne ay ka sameeyeen isbedel ka duwan sidii hore waxaana uu xuseen xilligaani ay AMISOM ay doonayso inay baxnaaniso shacabka Beledweyne iyo sidii ay ku heli lahaayeen xarumo caafimaad iyo waxbarasho isagoona ku baaqeen magaalada ay imaan karaan cid kasta oo xilliga doonaysa inay soo booqato magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. There are so many challenges here. One of the main challenges is for security, and that is why we came here to make a difference and for security to fight the bad guys, which is Al-Shabaab, and also to help the population and for rehabilitation and rehabilitation for the schools, hospital. ciidamada Djibouti ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxay halkaasi ay ka sameeyeen in ay soo celiyaan ciidamo qaranka Soomaaliya uu yeesho iyagoona tababar u furay ilaa iyo dhowr jeer ciidamo Soomaaliyeed oo noqonaya ciidamo qaran u taagan waa kan askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo loo tababaray qaabka loo ogaado meelaha ay ku dugan tahay walxaha qarxa iyo sida loo baaro isagoona ka dhibanaya aragtidiisa qaabkii loo tababaray ayaa waxa uu yiri waxa la tababaray in qalabka miinada oo liisi in aan dalkayga ugu baaro miinada kooxaha argagixisada dalka waxay ku qarabaan inaan ka bixiyo ayaa la tababaray dhinaca kale marka loo firiyo qaabka ciidamada AMISOM ee ku sugan qayb kamid ah gudaha dalka ayaa ka bedelan sida ay shacabku la macaamili karaan ciidamada ka socda dalka Djibouti taasoo ay keentay inay si toos ah u wada hadli karaan askariga AMISOM ee Djibouti iyo sidoo kale qofka Soomaaliga ah halka ciidamada AMISOM ee ka socda dalalka Uganda iyo Burundi ayba ka qabaan qawaaf aad u adag iska badaayay inuu ag istaago markuu soo dhawaado askari ka tirsan ciidamada ka socda dalalkaasi waxaana ciidamada Djibouti ee nabad ilaalinta AMISOM ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ay iyagu noqdeen kuwa si aad u dhaxgala shacabka Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ayaa sheegay in isbedel nabadeed ay ka jirto halkaasi taasoo uu ku sheegay in ay ka dambeysay howlgalka AMISOM ee ay wadaan ciidamada Djibouti ku sugan gudaha gobolkaasi wallahi waa xaslanahay isbedel badan ayaa jiro markayna soo gaareen walaalahayna Djibouti waxaan u jeednaa amni fara badan arkayna hidadila dawladnimo arkayna haddaanay dad isku diinanahay dad waxaanan walaalaha oo isku luuqadna ah Soomaaliya ku wada hadla sidoo kale waxaa jirta in magaalada Beledweyne ay gaaraan mas'uuliyiinta ugu sareeyay AMISOM iyagoo soo qiimeeyay qaabka howlgalka ammaan ee ka socda gobolka Hiiraan waxaana ciidamada Djibouti halkaasi ku sugan ay soo bandhigeen markii la soo booqdo oo la tus military aad u adag isbedel wanaagsan oo dhinaca ammaanka ayaa mid si aad looga dareemayo magaalada xarunta gobolka Hiiraan kaasoo ay ka wada qayb qaateen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Djibouti iyo sidoo kale shacabka ku nool degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waana taatan la oran karo sababta ka dambaysa in lagu amaano ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan ciidamada ajaarka la ah dalka Soomaaliya ee matalaya AMISOM ee u dhashay dalka Djibouti kuwaasoo mar walba jecel inay ka qayb qaataan soo celinta dalka Soomaaliya Cabdinaasir Nuur Socdaal Somsa TV magaalada Muqdisho